munaasabadani lagu guddoonsiinayay abaalmarinaha kooxdii ku guulaysatay koobka kubadda cagta ee bishii Ramadaan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa lagu qabtay hoolka dawladda hoose ee degmadaasi waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Somaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha maamulka heer gobol iyo heer degmo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gabiley madaxda xisbul xaakimka kulmiye kooxaha kubadda cagta ee magaaladaasi Gabiley iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxaana dhammaanba mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay hadalladoodii ka mid ahaa kooxda garsoor runtii saacad wasiiroon maantii horena idin sheegnay qofka bilaadanka damaha inuu iska noolaado laakiin waa inuu fikiro oo uu ku fikiro inuu howlaha uu wado iyo howlaha hareerihiisa ka socda wax ku soo kordhiyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa kooxdaasi nidaamka yareeyay khilaafaadkii ee conference-ka oo ah waxaana ciidan u sheegin ee iyagu curiyeen oo runtii aad iyo aad u qurxiyay wareegii annagana nagu dhiirigeliyey inaanu garab istaagno waxaan ugu talagalnay maadaama lagu jiro waqtiyadii fasaxa ee ardaydu fasax ahayd in wareegyada oo inta badan noqon jiray wantage oo kooxda marka labada kooxood isku dhacantii laga badiyay ay hadhi jirtay inay noqdaan groups oo maamulka dabarno kharash kastoo ku baxaya koobka iminka dhammaado wuxuu ahaa groups koobkan aynu isla beritoole isla bilaabi doono inuu ugu talagalnay heerka labaad wuxuu isaguna noqon doonaa groups waxaa sidoo kale halkan yaala saacadda wasiir Grayskii ay 8 kooxood ku ciyaari lahaayeen ku nool waddanka idinka wasaarad ahaan inaad culayskeeda ma siisaan meelaha muhiimsan waan iigu mahadcelinayaa aaladda soo kordhisay waxaan hadalkayga uga sii gudbayaa innagu dee anoo maqaba dhammaantiin wada barteen 12 kooxood ay ciyaarayeen ramadaantiina waa nagala soo qayb galay horta run ahaantii ninka ciyaaryahankii waxa weeye waa muraayad ay bulshadu iska dhex aqrisato intaa kadib waxaan soo mahadnaqayaa in kastoo soo agaasintay quruxda caawataalaalka ee koob leh ee dirays leh ee bilada leh cid kastoo soo agaasintay oo hawshaa ka soo qayb qaadatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waan idinjada runtii haddaan dhalinyarada la daba socon oo waxay u baahan yihiin kor baan naga wadahay waxba ma soconayaan gabagabadii waxaa munaasabadani soo afmeeray xildhibaan xasan cawaale wasiir ku-xigeenka ciyaaraha iyo wasiirka wasaaradda ciyaaraha waxaana dhammaantoodba hadalladoodii ka mid ahaa intaa ka bacdi waxa weeye waxaan aad iyo aad u hambalaynayaa kooxda ku guulaysatay koobka waxaan leeyahay hambaliyo waxaa kaloo aan hambalaynayaa kooxda labaad iyadana waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan hambalaynayaa runtii anigu waxaan ahay nin cayaaraha jecel cayaarta runtii halkan beri waxaan dhigay koob ay ka soo qayb galeen gobollada oo dhani ay ka soo qayb galeen ayaan halkan debda ku dhigay mid labaadna dhig baan idhi waxaa ii diiday wasiirkii hore laakiinse wasiirkan saaxiiban oo waxaan malaynayaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay haddii aanu nahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenkii baanu soconno inaannu ka soo qayb galno xafladda waxaanu uga soo qayb galno labada iyaduba isku soo raacnay oo saacadaha intaa leegna aanu u joognay miisaanka uu leeyahay gobolka Gabiley uu ku leeyahay Somaliland balintiinan dhalinyartu guud ahaan Somaliland waa ka nasiib badantii caafimaadka ugu weyn oo waxtaray wax weyn oo waa sport weyn kubadda cagta mooliga basketballka orodada waa sport waxaas oo dhan haddii goolay dhaqanku ku dadaalaa wax weeyaan waa caafimaad wax ugu daraa sport gabadha uu seenay waxa ka sii muhiimsan waa sport weyn iyadoo ay sidaa tahay sport wuxuu leeyahay horeyna waa lagu sheegay leeyahay celceliyo oo baayaan inaad dadka wax qabsataa baydinta la sport qabyaalad male maxalin wuxuu la diraa muqaddaraadka
la dirraa maaragtay jaarka kuwa cunaya sigaarka kuwa cabaya idinkoo maamulkiini gobolkiini wuxuu dadxooliyey inaad socotaan baa ka wanaagsan idinkoo kolba meel ku banjara taasi oo wax maaragtay meesha talabaan ka wasaara hadda anagu waxaan kasoo saari doonaa qoraalaan leenahay maaragtay gobolkiisu au hogaaminayo unba fisku bixi karaan waranayno soo saari doonaa kii la idhaaho markaan noqon tan kale waxaan leeyahay lixda gobol iyo gabiley waxay degtahay iyadoo lixda gobol iyo gabiley la idhaaho wada ogsoonahay sharciga maaragtay annagana uu naga horreeyay sharcigu وعبد الله الظاهر مغلليها عالمي Somali Channel قبلي